gudoomiyaha cusub ee xisbiga talada dalka haya kulmiye ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta hadhimo sharafeed ku maamuusay madax dhaqameedka iyo haldoorka iyo labeenta ka soo jeeda gobolada Togdheer, Saraar, Saaxil iyo sidoo kale Sanaaga. waxaana kulankaasi ka hadlay madax dhaqameedka iyo haldoorkii kala duwan ee ka soo qayb galay hadhimo sharafeedkaasi uu ku maamuusay gudoomiyaha xisbiga talada haya kulmiye ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyagoona uga mahadnaqay hadhimo sharafeedkaasi gudoomiyaha xisbiga kulmiye madax dhaqameedkii halkaasi ka hadlay. marka hore waa mahadsantiin shirka noo qabatay wasiir gudoomiye waa idinka mahadnaqaynaa waa idinku bogaynaa waa idinku soo dhaweynayna. marka hore gudoomiye waanu ku hambalyeeynaa waana kugu baarigaynaa xilka cusub ee aad la wareegtay waanu kugu hambalyeeynaa. xisbigii kulmiye wasiirada gudoomiye laga dhigo waa kugu hambalyeeynaa waa hal dabal oo halkiis ilaahay mareen baan ku marnaa. gudoomiye xilka maanta lagu doortay garbahaaga taaganahay waa ku taageeraynaa waa iska garab taagaynaa waa kula shaqaynaynaa gacmo furan iyo qalbi fayooban ku soo dhaweynaynaa. annagu waa qaadanaysaa maxamed axmed kaayan wax wanaagsan buu inoo keenay dadkuba markii hore waa rabnaa haddaanu caban lahayn maanta caban mayno waxna deeqaad noo keentay waa qaadana. waan soo dhaweynayaa gudoomiyaha xisbiga allaha kugu asturo xilkaa lagu idmaday allaha kugu asturo waxaad doonaysana halkaasna ilaahay ha inoo barakeeyaan leenahay. marka hore martiqaadkii waanu ka ajiibnay wasiir waanaanu kaaga mahad celinaynaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay. arrinkan kale cusub ee lagu cimaamaday ilaahay waxaanu ku weydiinaynaa inuu kuu fududeeyo oo kuga hagaajiyo dariiqiisa saxa ah oo inagu gaarsiiyo halka aynu doonayno. maxamed kaahin axmed oo awal ahaa wasiirka arrimaha gudaha iminkana noqday gudoomiyaha kulmiye oo halkan inagu casuumay oo qada sharaf inoo sameeyey aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. casuumaddana waa uga mahad celinaynaa xilka cusub ee uu qabtayna waa ku soo dhaweynaynaa. marka u horeysa gudoomiyaha waa uga mahad celinaynaa kulankan iyo isugu yeedhida iyo casuumaadda uu suuqa keenay aad iyo aad baynu uga mahad celinaa waa ku mahadsan yahay aad iyo aad baanu ugu hambalyeelaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba. waynu isgarab taagaynaa waynu dhisaynaa waa kula shaqaynaynaa waana ku soo dhaweynaynaa waynu ku hambalyeelaynaa. sidaa uu ku yimid wuu ku soconayaa waa xusbi xalaal ayuu ku yimid xusbi goorgood iyo meel laga soo booday iyo cid laga soo dhaca maahee wuxuu keenay maxamed kaahin axmed xusbi xalaal xusbi xalaalna ma guulaysan waayo. waan uga mahad celinayaa martiqaadka uu u sameeyey gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha oqaasha iyo waxgaradka beelaha habar jeclo uu u sameeyeyna waan uga mahad celinaynaa. guddoomiyennimadii si wacan baa lagugu soo gerdiyey si wacan baa lagugu keenay. gudoomiye ku hambalyeeynaa hawsha lagu igmaday hal dabala lagugu igmaday waa kugu hambalyeeynaa. wasiir ama gudoomiye aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa. gudoomiyenimadaa lagu magacaabay ee xusbiga kulmiye aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa waana kula shaqaynaynaa. gudoomiyaha xisbiga talada haya kulmiye maxamed kaahin axmed ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland cali xasan maxamed cali mareexaan wasiirka cadaaladda Soomaaliland Saleemaan Warsame Guuleed iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibraahim Nafaqo ayaa madax dhaqameedka ka soo qayb galay hadhimo sharafeedkaasi uga mahadnaqay ajiibitaanka ay soo ajiibeen hadhimo sharafeedkaasi. martiqaadka uu inoo sameeyey gudoomiyaha ahna wasiirka arrimaha gudaha waxay ahayd martiqaad runtii gaar ah beelaha habar jeclo cuqaasheeda iyo waxgaradkeeda inay maanta halkan ku martiqaado maadaama gudoomiyuhu cusub yahay wuxuu gartay inuunan iska tegin odayaashii iyo waxgaradkii inuu maamuuso oo qodo sharafeed lagu sameeyo sidaa darteed ay iswaraystaan. gudoomiyuhu
ama wasiirka arrimaha guduhu 45 sanadood ayuu danta guud ka soo shaqeynayay hadday halkan tahay hadday tahay waxqabadkii iyo dowladnimadii iyo dhiskii dowladda hadday tahay ilaa imika oo weli u taagay kolley imikana hadday odaynimo tahay iyo hadday xil tahayba isaga inuu ku weyn horta markay noqoto qof saraakiisha sanama nin maxamedka ahinka halkan badan kuma jiro hadday dagaal noqoto ninka dagaal goob badnaa ma jirin hadday waxqabad iyo horumar noqotayna dee waa sheeganaynaa oo si guudna waa u sheeganaynaa si gaarana waa u sheeganaynaa oo cid maanta waxa aanu qabannay odhan karta ama maydu qaban ama odhan karta annaga aynu ka badsannay hadday jirto ha sheegto kulankeenani maanta wuxuu ahaa martiqaad maamuusa oo uu fidiyey guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha aniguna waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqayaa inaa martiqaadkiina iga aqbasheen sida mudakarka ahee loo yimi iyo waayeelka halkan ka hadlay arrimihii waxgaradka ahaa talooyinkii tala soo jeedintii wixiiba waan idinka guddoonnay waanaanu ku talagelaynaa waanaanu qaadanaynaa dee waad la socoteenoo bisha 20keedii laga bilaabo shirkii golaha dhexe xisbiga kulmiyaha socday dabadeedna markaas dii uu shirki dhammaaday anigii wasiiradani waxay nala noqotay inaanu markaa gobolka ku hadno waayeelkii iyo waxgaradkii maxaanku idhaahdaye deegaanka burcaan isaragno arrinta kale ee aan anagu imika halkan u nimi waxay ahayd ururka dee wuu shirayay kulmiye hoggaankiisa marba waa la bedelaa hadda anigaa laga dhigay guddoomiyaha xisbiga waxaan markaa imika dalka uu ku jiraa xaaladda imika gelaya waxa weeye waa xaaladii doorashooyinka waxaa soo hormaraya xaaladii ururada siyaasadeed hadda waxay marayaan 13 waa saddexdayadii xisbiga hore liisanka iyagu wuxuu ahaa 10 sannadood 10kii sannadood way dhammaatay xeer la yidhaahdo xeer number 14 xeerka 14aad ayaa wuxuu qorayaa 10kii sannadoodba waa in mar la furaa ururada siyaasadeed dabadeedna ay kulan yeeshaan tartan yeeshaan saddexda tartanka ugu bataa ayaa 10 sannadood ee dambe noqonaya xisbi qaranka jira ayaa noqonaya xisbul xaakimku marba waa ka doorashada hele madaxweynahoodu uu soo baxo sanadkii hore waxaa ku soo baxay 10kii sannadood markay dhammaadeen kulmiye wadani iyo wuxuu baa ku soo baxay sanadka ayaa ku soo baxaya garan mayno waa tartankaas ninkii alla u qadaraaba maxaanku idhaahdaa ku soo baxaya laakiin xeerka ogol inuu sidaa noqdo maadaama sidaa ula socotaan khaliil barra awraan warbaahinta qaranka Somaliland bro